السلام عليكم. رمضان way socotay waxayna inagu dhaaftay si dhaqsiyo leh oo aqalka bini'aadanka la fudud. Arrinka waalida ayaa markaad Ramadaantii hore sanadkii hore aad eegtid waxaad moodaysaa inay ahayd dhowr bilood ka hor. Waxayna Ramadaan inagu dhaaftay si dhaqsiya sidii inay tahay Ramadaantii ugu dhaqsiyaha badnaan nolosheenayna soo martaa. balse waxaa la yaabaa markaad ogaatiin suubanayna calayhi salaatu wasalaam oo 1400 sano ka hor uu inooga waramay waxa dhacayaana ay ka mid tahay mid ka mid ah calaamadaha yaryar ee saacadda sida nabiga calayhi salaatu wasalaam inoogu sheegay markuu ka hadlayay calaamadaha yaryar ee saacadda. qaala rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح ويكسر الهرج. قال يا رسول الله وما الهرج؟ قال القتل. يتقارب الزمان ويسوتر يا حلقو سيدا إن بشي أي كلا نقونيسو مالمهين أي كلا نقونيان ساعة ير أو كوبان ساعدهن دقيقة دير بل سكدي إن حسوستي هبينك لحسي دالشاد سنة كعسوة ميلادك رجيني سينا عادل هذه دولوين يريوين سنة كعسوة كو عرطي يمكن أي نكوشرنا كالبركي بشي أبريل كنسو ورقتي صدح بلود يبار كنا دقانتاي إن أي نرافتي أفر ميلاد سنة كيميل كميدهي. ينقص العمل يعني dadkii waxay bilaabay inay iskaga tagaan shaqooyinkooda ugana tagayaan iska fadhi iyo caajisnimo. bal eeg iminka marka aad furtid mid ka mid ah baraha bulshada meelaha ay bulshadu ku kulanto TikTok baan tusaale ahaan u soo qaadanay markaad dhex gashid waxaad ka helaysaa dadyo shaqadoodii iskaga soo tagay oo habeen iyo maalinba ku dhex jaasaya si ay u helaan views wada aad foolxun iyo leef inta la soo galo game la isla ciyaarayo oo wixii la doono la isku hadlayo laguna aflagaadeynay diinteena iyo nabigeena calayhi salaatu wasalaam hooyooyinka oo lacaayo xitaa hablihii caarka ah oo lagu aflagaadeynayo. waxa kale aad arkaysaa in bulshadii ay raadinayso shaqooyin aad u fudud shaqeeyaana waqti yar oo kooban kuna qaataan waqtigooda inta ugu badan iska fadhiya maalayacni oo yulqa shuxu inay yaraadaan acmaashii khayrka lahaa dadkuna ay u kala dheerayaan sida ay hanti iyo maal ku yeelan lahaayeen waxayna badanaya fitanka. bal waxaad eegtaa waxa ka socda hareerahaaga eeg waxaa ka dhex dhacaya internetka hablihiina ayaa meel kasta ka dhex neekanaya sharaftoodiina dhaafsanaya inay helaan caannimo iyo lacag. wayakthuru alqatl bal isku day inaad dib ugu noqotid imsa kiis oo dil ah ama warar ku saabsan dilal ayaad maqashay intii lagu guda jiray isbuuciina soo dhaafay oo keliya iska daa wixii horebe balse lagana duubanayo muuqaalo inta dilka la geysanayo sida caalamkii uu noqday mid waalan. maantase waxaa si degdeg ah inagu dhaafaysaa bishii ugu khayrka badnee sanadka oo dhan oo sanadba sanadka kasii dambaysa sii yaraanaysa barakadeedii oo aynaan dareemin xitaa wanaaggeeda iyo khayrkeeda waxay noo bilaabanaysaa inagoon dareemin. waqtigii ayaa laga qaaday barakadii sababtuna ay tahay in dadka ay ka fogaadeen diintii kuna mashquuleen ciyaar iyo waxaan waxba tirayn oo maalayacniya taasoo noo ikhtiraaceen gaaladu wax laga xishoodo ah in dadka badankiisa ay yihiin kuwa waqtigooda badankiisa ku qaata internetka daawashada muuqaalada kooban iyo kuwa dhaadheerba. balse arrinku waxa uu gaadhay in waqtiga aynu la qaadano telefoonadeenna ay yaraysay ama meesha ay ka saartayba waqtiga aynu la qaadan jirnay qoyskeena iyo ubadkeena oo ay halkay ahaan jirtay inay qoysasku ay meel inta ay isugu wada yimaadaan waqti ay ku wada qaataan ay yaraatay ama ay gebi ahaanba meesha ay ka baxday. qof walbaaba uu la kaliyeysanayo telefonkiisa iska daa xitaa asxaabtii meel isugu wada imin jiray ku wada caawin jiray ayay saamaysay. waxaana arkaysaa koox meel wada fadhida oo aan midna mid la sheekaysanayn oo mid walbaaba uu ku fooraro telefonkiisa wuxuuna noqday waqtigii in lagu lumiyo waxaan faa'iido lahayn saa barakadii layna laga qaaday. halka ay ahayd inaan cibaadaysano aan wax barano ay ahayd inaan qaraabada xidhiidhino qaraabo xidhiidhiska aan yar dul istaagnay daawada bal intaad naftaada la sheekaysatid bal waxaad weydiisay goorka ugu dambeysay in qof ka mid ah qaraabadaada aad soo booqatid ha noqdo abti adeer eedo habaryar wax macquul ah inaynay jirin haddii si ay jirtaba waa yar tahay. xitaa sadaqadii la bixin jiray ayaa noqotay igu sawir wuxuuna noqday waqtigii inuu kugu dhaafo si degdeg ah inagoo aan dareemin waana wixii suubanaynu naxariisii nabadgelyo korkiisa ha ahaatee inuu nooga degayo 1400 sano ka hor isagoo ina leh sayataqaarabu zamaan. bilaha lagu xuso qur-aanka ayaa ah 12 bilood wax iska bedelayna ma jiraan balse cidda isbedeshay ayaa ah innaga bini'aadamka iyo addoonkaba. maalmuhu waa maalmihii saacaduhu waa saacadihii biluhuna waa bilihii rabadaantuna waa rabadaantii. waxaa si lumina barakada ayaa in waqtiga laga faa'iideysto. calaamadaha karaahiyada iyo cadhada alle ayaa waxaa ka mid ah in waqtiga la lumiyo. alle kama yeelo rabadaanteena mid dhamaata ilaa alle subxaanahu wa tacaala uu siiyo mid kastoo inaga mid ah muraadkiisa.